رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن والضلالات. إخواني في الله، waxaanu ku soo guda jirnay shahru ramadaan wa duruusiha. maanta waxaynu qaadan doonaa insha allah biidni illaahi tacaala min mafsadaati alsawm, waxyaalaha soomka fasahaadiya ee qaarkoodna ay ka dhalato ma garanaysaa dunuubta waaweyn iyo jaraa'imta waaweyn ay ka dhalato, qaarkoodna ay dembiyada yaryar ka dhashaan. sideedaba waxa weeyaan soomku sidiisu wuxuu ka bilaabmaa adinka salaada subax loo adimo, waxaanu ku dhammaadaa uu ku egyahay waqtigiisu adinka salaada maqrib lagu adimo. saa la ajligeed marka waxaa intaasna soomku uu noqonayaa inaad ka tagto oo keliya maaha cuntada iyo biyaha, inaad ka tagto keliya maaha ma garanaysaa wuxuu ilaahay markii horeba xalaal kaaga dhigay uu bishana kugu adoonsaday inaad waqtigaa joojiso, intaasoo keliya maaha. waxaa kaloo ka mid a shay kastoo ilaahay kuu xalaaleeyey inaad ka tagto sifaadkaas lagu yidhi iskaga ilaali waqtiga intaa leeg inaad iskaga ilaalisaa loo baahan yahay. waxaa ka mid ah jamaacigaa ka mid ah ninkii oo reerkiisii iyo xaaskiisii la kulma ayaa ka mid ah, iyadoo bil ramadaan tahay oo waliba maalinna ay tahay oo habeen aanay ahayn ayaa markaa ay noqonaysaa mufsadaat lisoom, waxyaalaha soomka fasahaadinaya. soomku sidiisuba waa yadacu inطaamuhu wa sharaabuhu wa shahwaatuhu min ajli ayuu ku doodayaa maalinta yowma alqiyaamaha. markuu ilaahay agtiisa ka doodayo, ilaahayow addoonkan wuxuu agteyda oo aniga aan markaa uu isoomanaa uu kaga tegay inuu guto shahwaadkiisi, inuu cabo cabitaankiisi iyo inuu cuno cuntadiisiiba ilaahay aniga darteeba uga tegay, ood adiga anigoo xaggaaga wakiilka ah ood igu markaa addoonsatay addoonkaasi inuu saa ii soomo. haddii markaa xadiis uu soomkii uu kugu doodayo, markaa jamaaci haddaad la timaado adigana waxaad ku dhacaysaa dembi iyo ithmi weyn baad ku dhacaysaa. kamaa jaa fi xadiisi rajul alladii waqaca biimra'atuhu fi ramadaan, sidii uu ku yimid xadiiskii ninkii haweenaydiisii jamaacay bil ramadaan iyadoo ay tahay maalinna ay tahay. ilaan bisha ramadaan habeenkii waa mubaax, laakiin maalintii laftigeedii ayuu wax ka dayay reerkiisii. markaasaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam, waana u sheegay arrinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. faqaala rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam, nebi maxamed ayaa markaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam: ictaqi raqba, qoor xore buu yidhi, addoon xore. ninkan isagaaba xaalkiisa ilaahayba ogaabo
waxna uu xoreeyay iska dhaafay isagii waxna ma haysto adoonno uma joogto adduunna ma laha wax alla wuxuu gacan ku hayaana ma jirto reerkiisiina arkamu ka dhacay markaas qaala ninkii baa wuxuu oranayaa maa ajiduhaa maba helaya rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam qoortaa la xoreynayo oo addoonba ima joogto weeye faqaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasallam rasuulka marka la ku yiri calayhi salaatu wasalaam fasum shahrayni mutataabicayn waxaad soontaa laba bilood soon oo mutataabicayna qaala rajul ninkii baa markaa wuxuu leeyahay laa astadiic kari maayo rasuulka ilaahay oo way igu dhib badan tahay mana kari karayo qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay baa wuxuu leeyahay rasuulka allah ku yiri markaa ninkii calayhi salaatu wasalaam saxaabiga ahaa fa adcimu 60 miskiina waxaad qoodisaa oo wax siisaa 60 miskiin wax siibu rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhrajahu Bukhari wal Muslim iyo Bukhari baas ayaa markaa xadiiskaas inoo warnaya waxaanu ka faa'iideysanaynaa horta cuqubada ka dhalatay waxa weeye maalin kaliya aad saa u khaldantay maalintii aad khaldantay waxaa lagugu xukumay 2 bilood oon kala go' lahayn inaad soonto soonka waliba waxaa ka horeeya inaad qoor xoreysa addoon ah addoontii haddii aanad haynin oo gacanta aanay kugu jirin waa inaad 2 bilood aad soontaa 2 bilood oo maalinna waliba aanad u dhaxaysiinaynin cudurdaarna aanad ka yeelanaynin waa cuqubada iyo mafsadaadka ay keentay maalintaas arrinkii reerkaaga aad ula tagtay iyadoo Ramadaan ay tahay xataa aan markaa cafis aan laga gelnayn ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciisi ay ka cafiyaan mooyaane markaasaa haddana waxaad intaa markaad kari weydo ayaa waxaa lagu yiri waxaa kalood samaysaa qoor ma xoreyn kartid 2 bilood ma soomi kartid 60 miskiin qoodi baa lagu yiri 60kii miskiin ayaa laga rabaa markaa fidiyadoodii ninkan iska wuxuu ahaa iska dhigay markaa miskiin ah oo dambina ka baqayo hayo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xaqiisa u yimid oo noo sheegay markaa uu arrinkan uga waramay arrinkan ka warankiisana inaga oo waqtigan joogna waqtigii rasuulka laga waramayna faa'iido inoogu jirto mid inaga midi hadduu arrinkaa ku dhaco xukunkiisii iyo waajibkiisii diinta islaamku ay marin lahayd ayaynu bartaa ka faa'iideysanaynaa aanu ka baranaynaa arrinkanna inuu macsuum ilaahay uga dhigo dadkaana uu ka ilaaliyo maadaama asxaabtii rasuulka ay yihiin oo dhibka iyo dhibaatada uu ka fogeeyo ilaahay waa awoodaa hase ahaatee cashar iyo maartay diin baa meeshan laynaga baraya oo qofkan dhibkan ku dhacay adigana bari ka maalin haddii aad la timaado sideedii baa lagu marnayaa oo taateedii baad u maraysaa weeye cuqubadeedii baad maraysaa xadiisku waa sii dheeraa in yaro gooban bay ka soo qaateen Bukhari iyo Muslim iyagoo uga jeeda mafsadaat al-soom iyagoo uga jeeda bay inta ka soo qaateen waxa kaloo kamid ah xadiiska isagoo rasuulku ku yiri markaas 60 miskiin qoodi ku yiri ninkii ma hayo ayaa soo meeshii fadhiya waxa loo keenay dambiil dhan oo timir ah oo la yiri rasuulullah beertii fulaan sakadeedii weey rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam dawar timirtaan qaado ordo 60 miskiin qoodi oo 60 miskiin qaybi markaasuu ninkii wuxuu ku yiri yaa rasuulullah ilaahay xaq ugu soo saaran ku dhaartee aniga cid iiga faqrisan oo iiga miskiinsan aniga iyo gurigeyga garanba maayo magaalada Madiina ku garan maayo markaasuu yiri rasuulku waa munsooyaday ama waa dhowl cadeeyay ordo ehelkaaga ku sadaqaysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka diinta laftigeedu inay fududahay in hada diina yusra walaw yashadda ahadakum illa qalabah فسدوا فاقربوا واستعينوا بالقدوة والروحة والشيء من الذل جبر رسول الله عليه الصلاة والسلام دين تاني يدو واي فضضها إذا الله عدة اسكو أدكيسة أي بريس كغديتانا دين تنبا قالب كنقطو دين تنبا سقناتو ماشي دي تاغناتا qofkiina haduu degdegsiya ahaana degdegiisu ma ku dhaafaa gaabsi haduu ahaana meesheeda kama soo gaaro hadii kale sida leebka ay qaansado uga dhax baxdo oo kale ayuu mudiinta dhinaceeda kale ka istaagaa weey walaayadu billaah barkaadiitu saasoo fududah ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala anigu marnaba dooni maayo inaad ku cuslayo
ولكن waxaan doonayaa ilaahay dii fuday ilaahay ilaah subhanahu wa ta'ala ayadii hore soo qaadanay waagart waxa kale hadaba meeshan al-akl wa in aw al-sharab cuntada waqti marka la cunayo iyo inta la cabayo ay reerkaaguna ku banaayay way cuntada intay ku banaan tahay oo biyahaas iyo sharabkaas ku banaan yahay haddii reeraad leedahay reerkaaguna waa ku banaayay liqawli ta'ala وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى آخر الآية لقوله تعالى وكلوا عنا واشربوا وعبا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض انت وإذين عدانيو يعني دمتي أبيض كهيد من الخيط الأسود يدنتي مدوينتي ذيك العدانيان ومن الفجر فجري هذا ثم أتموا انت قداشد واحد ما يسترتان الصيام إلى الليل صومكي مركا ما يستر مركي انت سيدي عداتي وواقي ذي بريي waxaad markaa aad samaysaan ilaa waqtigaas ilaa inta habeenka ka gaaraysan ay min al-maghrib inta ka gaaraysan soomkii naas waa inaad markaa saa u yeeshaan ayaa lagu leeyahay marka waxaan aayada quraanka ka faa'iideysanayna بعد المغرب laga bilaabo ilaa fajrki inay noo furan tahay waxaan cunno iyo waxaan cabno بعض الأصحاب rag asxaabta kamid ah waxay sameeyeen intay xarig madow iyo xarig aswad qaateen bay barkinta hoosteeda gashadeen ilaa qoraxda intii ka soo baxaysay waxay cuni kareen bay iska wateen ilaa intay kolba ay saa u kala bixiyaan markaas rasuulka uu la soo noqdeen oo sheegeen rasuulku markaa wuxuu calayhi salaatu wasalaam warheeda arinku ka ma loogama jeedee waxa looga jeedaa duluuc yani waxa looga jeedaa soo bixitaanka uu soo baxayo ama magaranayay fajr kaadib iyo fajr saadiqa waa bariga ka beenta iyo kiisa runta ah ayaa inta idii kala cadaanayeen baa looga jeedaa ee duntaan madow ha ku madoobaata tanna ha ku cadaato baayina ku kala noqoto loogama jeedo waxa weeyaan markuu waaga barigiisu kiisa runta ah iyo kiisa beenta ah kiisa runta ah waxa weeyaan waa ka kaaha cad iftiinka uu soo muuqdo si fiican u soo muuqdo kiisa madowgaana waa kiisa kaadibkaana waa ku madowgu markaa soo muuqdo xadiiska rasuulku wuxuu ku leeyahay salaatu wasalaam bilaal adankiisa cuntada yaanu idinka reebin iska cuna laakiin ibn maktuum waa abdullah ibn maktuum oo isaguna caama ahaa dhalaa ayaa waxa uu rasuulku alayhi salaatu wasalaam hadduu adimo joojiyo waxaad cunaysaan iyo waxaad cabaysaan waayo isagu dee weyn dhalaayo asxaabta xor jireen ya abdullah ibn maktuum waagi waa bariya adin markaas la ajligeed ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam bilaal adinkiisu yaanu cuntadeedii ka reebin iyo waxaad hawshaad qabsanaysaan laakiin abdullah ibn maktuum cuntada iyo waxaad cabaysaan iyo hawshiinaba ka dheeraada ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi ta'ala in ilaahay toobada inagu dilo وتوبة الله إنه صار إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحان لنا إلهي سبحانه وتعالى وحيدا بذنوب أن كل عنه في الدنيا إلهي ونقسم حديق عادله آخرتنا إنه هجاتي توبة إلهي ونقدر توبة إلهي ونقنوره توبة إلهي ونقص صار وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته